السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دلهان وايد السلامين ميل والبا دون دافيد كجوجتي كسو دباده برتيدا يوتيوبka نوعيga qofka idin la hadlayo waa nuuxiga fadlan hadan la joogtay aad u mahadsan tahay hadan nagu cusub tahayna noo subscribe gareey dhiirigelin ayay noo tahay insha Allah bidin like karim maanta waxaan doonayaa inaan ka hadlo barnaamijkan kasoo hadla jiray DV lotteriga inaan update gareeyo oo waxyaalo cusub idin la socodsiiyo waxyaalo cusub oo saas u ma jiraan laakiin sidoo kale socdeen oo maartay qiyaarta oo daawanaya YouTube channelkayga oo maartay la socday barnaamijka DV lotteriga oo na doonayeen in apply gareystaan marka waxa la soo weydiiyay su'aal goormeel apply gareynaya October waa la gaaray ilaa hadda ma aragno page formay wax la apply gareynayo marka xilliga la apply gareynayo si officially ah loo soo sheegay waxaana insha Allah haduunahay dadana gaarsiiyo la apply gareyn doonaa 6 bishan October 2021 wuxuu xirmi doonaa haduu Ilaahay raado 9 bisha November 2021 كل ديارات ينو مالنا باسبوردين وحينا أو دوكمنتي لقاعد بحنا لن واحد يستعمل إن شاء الله بإذن الله الكريم وحاقم صدنا بوحلي جو أوفرما كل وحفور مدونا سعد إست أفريقيا مركي تهاي تضبطها بينهم أما حل صعوها بينهم ويفور مدونا مركي أنا سعد إست أفريقيا وتهاي أوكي إن محل يجري وح أو مارت كروع عصب أو مدينة لكن وقت جاس أو مارت أبديت كاس أو إن كم غنا وسؤال دور اللي سوي دي قف سوي دينه دحين ما حق قول الفرايا أو أيام دوني إن مارتي وصل شيء waxaa kaloo jirto afar shay in ay kala tali ayaan jeclaystay ayaan rabaa okay kulay waa la socotiin shayga online lagu apply gareynayo lagu apply gareynayo xafiis gooni ay leeyihiin ama magaalo ku leeyihiin loo tagaa lagu apply gareynayo ma jirto in basan lama tago xafiiskaas gooni ay leeyihiin lama tago oo waxa ku apply gareysanaysa online ka mid labaad waxa weeyaan qof professional oo tagtido ay apply gareynayaan waxa ka qurux badan oo inaad yani ka qurux badan aad apply gareysato waayo waxa laga yaabaa dadka badan inay isdhiidaan qofkana professional ah ay apply gareey maybe chance kayga ama fursada aan ku guuleysanayo lotteriga ayaa badanayo waa beentaas iska dhaadhicin hadda adiga apply gareysid qof kale ku apply gareeyo isku mid waxaa laga rabaa in just inaad maaragtay information si fiican u buuxsatid okay su'aasha kale xigta waxa weeye rabaa in la socodsiiyo in istiraadid communicator waaye ama lama fahmi karo barnaamijkan qof aan lacag siinaya ay apply gareynayo taasna waa been iska dhaadhicin waa apply gareysan kartaa information kale adiga si fiican u yaqaan xogta si fiican u taqaano waxa garanaysaa maybe qof wala wadaay kartaa waa weydiin kartaa laakiin qof ku tiraad lacag ku siinaya ay apply garey ma fiicno mid afraad u dambeys waxa weeyaan inaad tiraadid waan guuleystay ama waan la select gareeyay marka lagu select gareeyay ka bacdi oo iska dhaadhicisay ma select gareeyay mid guarantee miya inay helayo passport ee maaragtay fiisayga guarantee ma aha hadii oo maaragtay guuleysatay micnaheedu ma aha inaad maaragtay oo fiisaha guarantee ay helayso ma aha waxa uu weeyaan talaabo kamid ah ayaa soo qaaday marka shuruudo iyo waxyaabo documentiyada lagaga baahan yahay inaad buuxisaa waa inaad kuwaas adigana stepkooda marta buuxisaa u heshid markaas waa sida intaasaan jeclaystay inaan la socodsiiyo kulli sawirkan mar hore aan kasoo hadlay qofka ugu dambeeyay su'aal igu soo weydiiyay wuxuu dhahay gabdhaha markay sawir galayaan ma igu xijaabkooda ay ku galayaan miska qamaar ay ku galayaan just muhiim waxa ay dhahay wajiga qofka face-kiisa si clear in loo arko dhigiga gabdhaha in la arko mudno qofkii rabana maartay in yar maar xagan waska banaan kara laakiin tinta ina banaysid ma aha qasab ma aha marka chance adiga ku banaan yahay waxa samayn kartaa wajigeeda qofka si clear oo loo arko kulli stuudiyayaasha ama dadka sawirka ka qaadayaan way la socdaan loo tiraadid sida laga rawr kumayo mentiga ayaga garanay way kula socodsiin doonaan okay intaasaan jeclaystay inaan la soo socodsiiyo insha Allah waxaan iri wuxuu furmi doonaa maalinta Arbacada 6 bishan October wuxuu xirmi doonaa November 9keeda hadduu Ilaahay nafta noo daayo insha Allah waqtigaas uu xirmi doonaa marka waxaan idin rajaynayaa guulaan dhamaan insha Allah bidin la kareemelo baa joogtiin guuleysa Soomaaliya in subscribe gareeya idinkoo mahadsan thank you